gaadhigani oo sidii xoolo uu ka soo qaaday hawdka Burco ayaa ku jabay bartamaha magaalada Hargeysa waxaana gaadhiga ku dhintay qaybo ka mid ah xoolihii uu sidii oo isugu jiray idoo riyo iyo dameer waxaana goobta uu ku xumaaday gaadhigu ahayd bartamaha magaalada Hargeysa waxaana ku dhintay ilaa 5 neef oo adhi ah mas'uulka gaadhigani loo soo raray ee watay oo Kalsan TV la hadlay ayaa waxa uu ka xog waramay halka uu ka yimi iyo sababaha ilaa imika ku dhacay uu xaniban yahay waxaan ku nimi Burco hawdkeeda ilaa markaa halkan waxaan nimi lixdii saaka markaa uu jabay gaadhigu uu jabay ha ariga markaa waxa qaar baa wax ku noqday miya waa ka baqtigiisa wada yaalo ku wada jabay meeshaan ku kulanay ilaa halkan ilaa intaad joogteen ilaa lixdii saaka xagaa u socotay markaa safarkiina adiga gaadhiga ariga waxaan u soconay meesha loo buurayay imka wajaale iyo meesha xadkaas galbeedka wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo xildhibaan nacnac oo goobta soo gaadhay ayaa muujiyey dareenka ay ka qabaan xoolahan gaadhigu la xumaaday waxaana xog waraysi ay la galeen mas'uuliyiinta xoolaha kadib la hadleen Kalsan TV ay uga warbixiyeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen dadkan xoolahoodii gaadhigu la xumaaday waxa weeye dawladdu waxa weeye anaga mas'uuliyad baa naga saaran weyn xaaladana waa tii madaxweynuhu xaalad degdeg ku soo rogay oo xagga abaaraha maadaama aanu hadda si kadis ula kulannay oo hadda aan halka ugu kulmayno wasiir ku-xigeenkii ganacsiga waxaanu taraygalanaynaa marka u horeysa balorta in geedana loo keeno biyihina loo keeno oo si degdeg ah oo waliba aan jeebkayga hadda ka bixinayo intana hadda loo harayo ayaanu jecel lahay waayo maadaama dawladdiina waad ogtihiin oo horaa madaxweynuhu ugu soo maray goobihii abaaraha xoolihiina waad aragtaa inay ku dul baqtiyayaan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa mar walba ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay abaartayna ka saaro saakisiyadii baa naloo soo sheegay in baabuurkan ka yimi bari guntii uu halkan ku jabay oo halkaa xoolana uu wadaa xoolihiiba waanu ka dejinnay baabuurkan u soo kareennay caws iyo biyo cawsun baanu u helnay biyo dee ma bacbi karaan marka imika waan u haynaa lacagtii waxaan u haynaa baabuurtii waan u haynaa marka waxaan doonayaa markii galabta yarana seenan baabuurta saaran baabuurkan oo meesha ku jabay oo dadkan galbeed ku socda marka waxaanu aad u jecelaanay anagoo Jimcida Raxmad Khayriya ayaan ka qayb galno xogaa raashina iyo biyo iyo waxa ka qayb galno waayo waxaan u baahanahay inaan iswada gargaarno dhammaanteen dadka shacabku dhammaan way ku soo wada baydheen oo wada gargaarayaan dhammaanteen marka waxaan u baahanahay inaan isu wada caawino hadda dadkaynu caawino dadkeena dhibaataysan ee ku socda galbeed ku socda waxay u baahan yihiin halka laga daba tago oo halka wax loogu qabto u baahan yihiin marka waxaan leenahay dibadda gudaba dhammaan loo adeego dadka dhibaataysan si kastaba ha ahaatee xildhibaan nacnac iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga ayaa muujiyey dareen aan hore loogu arag mas'uuliyiinta xilalka haya waxaana adhiga ay u kireeyeen gawaadhi kale iyagoona aad arkayso iyagoo gacmahooda ku guraya adhigaasi waxaana ay dadkii goobtaasi siiyeen lacag ay ka bixiyeen jeebabkooda maxamed faarax bile Kalsan TV Hargeysa.